Maxaa dhici kara haddii hubka nukliyeerka la isku adeegsado? Hubka nukliyeerku waa midka ugu awoodda badan uguna halista badan ee aadanuhu abid farsameeyey. Laakiin maxaa dhici kara haddii hubkan halista ah la isku adeegsado mustaqbalka? Barnaamijkeena maanta waxaan ku eegi doonaa saamaynta ba'an ee qaraxa nukliyeerka uu ku yeelan karo dadka, deegaanka, iyo guud ahaan dunida. Soo dhowaada daawadayaal. Hubka nukliyeerku waa hub isticmaala tamarta laga helo kala baxa ama isku darka atamyada. Awoodda uu leeyahayna waa mid aan la qiyaasi karin, waayo hal qarax ayaa baabiin kara magaalo dhan, isla markaana sababi kara dhimashada kumanaan qof haddii aysanba noqon malaayiin. Marka hubka nukliyeerka uu qarxo, waxaa jira saamayn aad u xoog badan oo degdeg u dhacda. Tamarta qaraxa waxay dhalisaa kulayl aad u sarreeya oo halis ah, kaasoo dhismayaasha, deegaanka, iyo dadka ku dhow meesha uu qaraxu ka dhacay u beddelaya dambas. Dabaylo xooggan ayaa dhaca, kuwaasoo burburiya wax kasta oo u dhow. Intaas kadib waxaa soo baxa shucaac halis ah oo waxyeeleeya caafimaadka dadka. Shucaacaas ayaa sababi kara kansar, cudurro halis ah oo ku dhaca jiilalka dambe, iyo gubasho aad u daran oo ay la kulmi karaan dadka sida tooska ah ugu dhow halka ay bambada nukliyeerka ah ku qaraxday. Qiiqa iyo boorka ka dhasha qaraxa ayaa hawada ku faafa, taasoo sababi karta xaalad loo yaqaan nuclear winter. Waa xaalad qorraxdu ay mugdi noqoto, heerkulkuna si daran uu hoos ugu dhaco. Dhirta iyo xoolaha ayaa baabi'i doona, cunto yaraana ayaana dhici doonta, taasoo keeni doonta inay dunida ka dhacdo macluul baahsan. Dhanka dhaqaalaha, qaraxa nukliyeerka wuxuu burburinayaa kaabayaasha dhaqaale ee dal dhan sida warshadaha, waddooyinka, iyo adeegyada bulshada. Dadka badankoodana waxay noqonayaan barakacayaal aan heli karin hooy, cunto iyo daryeel caafimaad. Saamayntu kuma ekaan doonto hal dal, balse waxay saamayn kartaa dunida oo idil. Si looga hortago halistaas, waa muhiim in dalalka caalamku ay si wada jir ah ugu ololeeyaan dhimista iyo xakamaynta hubka nukliyeerka. Wadahadal, nabad, iyo iskaashi caalami ah ayaa ah furaha badbaadinta mustaqbalka aadanaha. Nukliyeerku waa hub aad halis u ah oo ay tahay in lagu dadaalo in aan weligeed la adeegsan. Adiga maxay kula tahay daawade sida looga hortagi karo masiibadan? Fikirkaaga noogu reeb faalooyinka hoose. Hana hilmaamin inaad like iyo subscribe saarto channelkeena si aad ula socoto muuqaalada dambe ee xiisaha leh.